إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخوتي في العقيدة، waxaan intii rabbiina karsiye ka odhan doonaa masaladaasi ku saabsan tahiiru nafsi wa taskiyatiha aw taskiyat alanfus, nafta in la daahiriyo oo la zakeeyo. annafs waxaan marka kan ujeednaa alquwa almudrika almukhtaara. yani fi luga nafsigu ama shareecada wuu ku soo aroraa iyadoo qofka bini aadamka o dhan loo jeedo, wa fii anfusikum afalaa tubsiruun. waa soo arooraa iyadoo xataa dhiigga looga jeedo. waa kuwii fuqahada odhan jiray maa lahu nafsun saa'ila. waa soo arooraa iyadoo ruux qura loo jeedo. waxaynu uga jeednaa halkan markaanu tilmaamayno quwada ama awoodda qofka bini aadamkii wax ku dareemo, ee wax ku doorto, ee khayrka iyo sharka kala doorata, ee samaha iyo xumaanta kala raacda, ee isbedbedelka badan leh. waxaa aada u cajiiba waktiyadan dambe basharku bukaanada qaarkood aada buu u arkaa, gaar ahaan bukaanada jidhka ku dhaca. sidaa awgeed baa mujtamacaadkan dambe ee ilaahay ka fogaaday waxay daryeelka ugu badan siiyaan jidhka. jidhka daryeelka ay siinayaan wuu xad dhaafaa, iyadoo aan laga fekerin qaybo ka muhiimsan jidhka oo nafta bini aadamka leedahay. jidhka aad baa looga fekeraa, oo hadduu xanuunsado dhakhtar baa la geeyaa, waa la daweeyaa. oo hadduu gaajoodo hudheeladaa lagula degdegaa cunaa la siiyaa. oo hadduu haraado waa loo waraabiyaa. oo hadduu qaboobo koodhar baa loo xidhaayo, bustayaal baa loo iibiyaayo waa la diiriyaa. oo hadduu kululaado waa la qaboojiyaa, mukayafaad iyo waxbaa loo dhigaa. oo noloshoo dhan waxaa loo fekeraa jidhkan sidii loo hagaajin lahaa. waxaad kaloo moodaa jidhka caynkaa qiimaha intaa leeg la siiyey qaybo ka muhiimsan oo nafta bini aadamka ay leedahay inaan muhiimad intaa leeg la siinin. qaybo aynu leenahay inaad janno gasho iyo inaad naar gasho iyaga ayay ku xidhan tahay. qaybo aynu tilmaamayno inaad wanaagsanaato iyo inaad xumaato iyaga ayay ku xidhan tahay. qaybo nafta bini aadamka kamid a aynu leenahay masiirkaaga iyagaa ku taxakuma, iyaga muhiimadba lama siiyo.
sida awgeed buu nabigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh isagoo arrintan inagu boorinayo wuxuu lahaa ina allaha laa yandur ila suwarikum walaa ila ajzaamikum ilaahay ma fiiriyo oo ma eego oo qiimo agtiisa uguma fadhido suuradahan siiyey inaad madowdiyo inaad cas tahay inaad qurux badantiyo inaad foolka tahay inaad gaabantiyo inaad dheer tahay suuradda aad leedahay walaa ilaa ajsaamikum iyo xooggiinu inta uu leegyahay tamartiinu iyo feedho burnidiinu intay leeg tahay muruqiinu siduu yahay cujuul bini aadama inaad tihiin dibidan yaryaro dadku rabeeyo waa dibi noocan muruquun inta la dhiso qof yaroo dibiga leegumad arkaysa una muruq waliba ka dibiga aanu ka yarayn laakiin khawaa nafsii uu ku jiro noocaad tihiin ilaahay ma eega sida tana baa la yidhi walakin nebigu wuxuu leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu calayh walakin yanduru ila quluubikum wa acmaalikum waxaa la eegaa subxaana watacaala qalbiyadiina alquwa almudrika iyo camalka kasoo fulaya siduu yahay acmaasha kasoo fulaysa sida ay tahay waktiyadan dambe aadka dadku uu sii durkee gaalo lagu dayday noloshoo dhami waxay ku salaysan tahay jidhkan un sida loo dhalaaliyo iyo marada la saarayo wax allaaliya waxaa iclaan t v ka socda ee saabuun leh shambo leh cream leh kan leh wuxuu ka waramayaa mid jidhka jilciye iyo mid khafiifiye mid nadiifiye iyo mid caseeye iyo mid madoobeeye iyo mid kalareeye mid nooc kale ka dhiga waxa la wado oo dhami waa jidhkan iyo maradu qaadan lahaa iyo siduu u dhalaali lahaa ama noocu u ekaan lahaa iyadoo ilaahay qur-aanka ku tilmaamayo qaar feedho buuran oo aana la agtii qiimo ku lahayn waidaa ra'aytahum tucjibuka ajzaamuhum baa ilahay yidhi wain yaquluu tasmac liqawlihim kaanahum khushubu musanada hadday hadlaan ba ilahay yidhi waidaa ra'aytum tucjibuka ajzaamuhum munaafiqiin baa ilahay ka warramayo waxaa la yidhi haddaad eegto xoogooda iyo siday u qurux badan yihiin waad la cajab gelaysaa baa la yidhi subxaana watacaala wain yaquluu tasmac liqawlihim kaanahum khushubu musanad hadday se warramaan baa la yidhi oo cama fi lqalb wixii nafta ku jira ay tacbiiriyaan waxaad moodaa ba ilahay yidhi qoryo meel lagu tiiriyey qorigu hadduu geedkiisa yay waxtar buu leeyahy haddii la gooyo wax lagu dhiso waxtar buu leeyahy haddii laakiin geednimadana laga jaro oo la gooyo asaan waxba lagu dhisine meel laskaga tiiriyo manfacba ma leh yani labada goor manfac buu yeelan lahaa hadduu geedkiisa iyo manfac buu yeelan lahaa oo in la hadsaday in la midho laga cunayo wuxuun manfac buu soo kordhin lahaa haddii inta la gooyo wax lagu dhisto wax lagu qabsadana manfac buu yeelan lahaa lakin ilahay kuwan wuxuu yihi kaanahum khushubu musanada yaxsabuuna kula sayxatin calayhim hum lcaduwu faxdarhum qatalahum allahu anaa yufakuun idan waxaa aada loo buunbuuniyey waxaan buunbuunis u baahnayn sida awgeed baa ilaahay subxaana watacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya inuu alla ina abuuray oo inaga yeelay wajacalnaakum shucuuba waqaba'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allahi asqaakum miisaanku inuu wax kala yahay miisaanku ciddaad ka dhalatay iyo ciddaad u eg tahay iyo xooggaad leedahay iyo abtarsiinkaad leedahay inaanu hayn si awgeed baa waxaa la yidhahdaa cabdillahi ibnu mascuud nin saxaabiya oo saxaabadii waaweyneyd kamid ah ayuu ahaa xagga tamarta laakiin nin aada u tamar yar buu ahaa baa la yidhahdaa nin aada u mijo dhuudhuuban buu ahaa dabeetana maalin baa cabdillah oo dabayliyaro haylaysay qola saxaabiya akeere way qosqosaleen mijihiisi iyo wax inta la arkay ayaa la qosqosalay markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh atacjabuuna min diqati saaqiy bni mascuud ma waxaa ka yaabantihiin dhuudhuubnida cabdillahi ibnu mascuud miyaa la yaabteen buu nebigu ku yidhi wاladii nafsu muxamadi biyadi lahuma fi lmiizani cinda allahi asqalu min jabali uxud ilaaha nebi maxamed naftiisu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye labadaa dhudhun ee aa arkaysaan miisaanka qiyaamaha marka la saaro buurta uxud ka culays weyn buu nebigu yihi labadaa dhudhune hadda idinla fiiqfiiqan ee mawdicu daxki idinka idina meel lagu qabsalo idinla agtiina ka ahay miisaanka qiyaamaha haddii la saara buu nebigu leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu calayh buurta uxud
كحق بدن إذن waxaynu u baahanay inaynu in badan eegno meesha u baahan eegis sida awgeed ayaa waxaan leenahay dadku maanta qofka jidhkiisu dhinto way u ooyaan hebel waa dhinto ama waa xumaaday ama nafti baa haysata ama ninkii hebel waa isbedelay waa loo ooyaa laakiin ninka ruuxdii ama naftii ama qalbigii ku jiray uu madoobaadee dhinto cidiba ma oga wallahi waa shaqaysta waa xogsada waa nin digdiglo halkan ordaya baa laleeyahay isaga qiimo badan looma arko laakiin maydka nool baa ugu daran ka naftuna ku jirtay haddana maydka aan tirsiska ahayn taas baa mayd ugu foolka waxaan leenahay waxaynu u baahanay inaynu naftan daahir yeelno inaynu naftan nadiifino oo ka nadiifino uskaga dhammaantii uskaga gaalnima ugu weyn inama almushrikuuna najas baa ilahay uskaga gaalnimada ugu weyn macaasida ku xigta waxaasoo dhan in laga nadiifiyo in la daahir yeelo in dunuubta iyo macaasida iyo xumaa naftani siday u go-aansan lahayd inay ka tagtay in loo traingareeyo in la baro siday u daahirsami lahayd maxaad u malaynaysa maalinta dadku uro haddaad urto maanta haddaad mujtamacan dhexdiisa urto waad khajilaysaa sacankaa maaha haddaad meel soo fadhiisato qof waliba dadku ay hoosta kaa wada eegaan oo la yidhahdo ninkan dhidudka qurmuun muxuu meesha kasoo doonay ooga ay kaa muuqato fool xuma ahi adna waad khajilaysaa dadkao dhamina wuu ku kahanaya laakiin mar baa jirta urtu taa ka kulushahay walidalik ayaa moxamed ibn lwasic caalimkii la odhan jiray muslimka ahaa oo taabiciintii waaweynaa kamid ah rag way zayn lqura la odhan jiray ahaa ayaa wuxuu yihi moxamed ibn lwasic waa nin taabiciy aada u weyn oo raggii runtii muslimiintu ku dhaadan jirtay waa nin caabida bale waxaa la yidhahdaa maalintii kabul la furanayey ayuu qutaybata ibnu muslim ninkii kabul furanaya wuxuu yihi war moxamed ibn lwasic raadiye me xagguu jiraa laba riwaayadood baa soo aror qolna waxay idhahdaan masaajidka isagoo ilaahay baryaanu aragnay qolna waxay leeyihin ciidanka maymanadiisaanu ku aragnay isagoo farta kor taagay oo ilaahay baraya farta ama gacanta buu yihi moxamed ibn lwasic ayaan kumaankum ciidan agteeda lagaga jecelay yani raggan in moxamed ibn lwasic ku jiro haddana ilaahay baryaya ayaan ciidamo aada u tiro badan laka jeclahay buu leeyahy raggii ilaahay ku xidhnaa buu ahaa ninkuu lahaa xasan albasri huwa zayn lqura ayuu ku sheegayay moxamed ibn lwasic baa wuxuu odhan jiray ba la yidhi law kana lidunuubi raa'ixa ma staطaaca axadu an yujaalisani dembigu buu yihi hadduu uri yeelan lahaa qofku inta uu dambaabo hadduu uri lahaa buu yihi majliskayga cidiba ma fadhiisan karteeteen meesha aan fadhiyo cidiba ma fadhiisan karteen buu ley haddii qof waliba uri lahaa inta uu dambaabo waktigan aynu halka joogno ilaahay baa asturay ilaahay baa ina qariyo asturay inteena meesha fadhida mayna wada fadhiyi karneen haddii nin waliba inta macaasiyo dembiyo qurunku soo sameeyey korkiisa ay ka uri lahayd cidiba may wada fadhiisateen laakiin maxaad u malaynaysaa maalinta dadba uri doono urtaadu waxay bilaabaysaa marka naftu kaa baxdo walidalik ba xadiidkii imaamu axmed werinayay muxuu tilmaamayey malaa'igta ayaa timaada dabeetana malakulmood markuu nafta qabtaa buu u dhiiba hadday naf wanaagsan ahayd intay xanuud iyo wax mariyaan wax udgoon oo kafan lagu xidhaabaa naftiisa la qaadaa dabeetana samaday lasii koraan malaa'igta cid kastoo ay lasii agmaraabo waxay idhahdaan man hadihi aruuxi ayiba war naftan fiicani waa kuma markaasaa la yidhaha wa fulan ibnu fulan waayo waa naf carfaysa oo udgoon oo malaa'igtu ay ka yaaban tahay haddaad nooca kala tahayna kuwa ku qaadaya kugu dhibmuta markuu malakulmoodku ka soo jiida jidhka kuwa loo dhiibay qaadaya ku dhibmuta ciddii kastee lala agmaraaba waxay dhahan warbeliya baaskan qurmuneed sideetaan muxuu ahaa man hadihi aruuxi alkhabiita tan baa taasitaan maxay ahayd bay idhaahdaan
markaasaa la yidhahda waa fulan ibnu fulan. idan waad uri doontaa, weliba waxaad uri doontaa biqadri macsiyatik aw biqadri taqwaak, intaad ilaahay ka baqatay subxaanahu watacaala amase intaad ilaahay caasiday ayaad uri doontaa. markaasaa weliba waxa lagu keeni doonaa maxshar iska dhan oo halkan foolxumadaada iyo intaadan 10 qof ama 20 qof inay ku aragtaaba kula weyn. yawmaidin tucraduuna laa takfaa minkum khaafiya, meel yawma yaquumu lashhaada, bashar oo dhami aadam laga soo bilaabay ilaa kii u dambeeyey meeluu taagay inta lagu soo taago ayaad adigoo macqurmuunkaagiya uri doontaa. sidaa awgeed waxaa habboon inaynu naftan u dadaallo sidaynu u daahir yeeli lahay, inaynu sharka ka reebno, inaynu wanaagga ku train garayno. nolosha wax walba waa training. wax kastoo aad training u qaadataa waa training u noqotaa, way kuu fudud yihiin hadhow inaad qabato. maanta inaad gaari kaxaysaa adigoo aan weligaa gaari kaxayn ma fududa. haddaad tidhahdo waa bahalka soo wadada un lama mariyo, bahalka yar nacaynkaa laguma yidhaahdo, balaa nacagun baa lagu taataabtaa, maxaad kale ka qabataan, keena waan kaxaynaya haddaad tidhaahdo intaad kaxayn karaysaa. yani kollayba gaadhigaa uhoreeya wuu baaba'aya, ka labaad waxa lakaa siiyaba derbi ku dhufatay kan jiidhay meeshan geysay, waa you are not training, laguma tababarin. laakiin haddaad in yar tababarato maskaxdaada focusing bay samaynaysaa, waxa ka dambeeya waxa ka horeeya waxa hareeraha maraya oo dhan bay markuna la wada soconaysaa. gacmahaagu way train garoobayaan, adig iyo gacantaadu way wada soconayaan oo kileeshka iyo gacanta iyo adigkaasu sibay wada dhaqdhaqaaqayaan. mar kastoo reflex action aad yara naxda ama wax qoonsato labada adinba mar bay wada dhaqaaqayaan oo kileeshka iyo breega wada qaban. yani waa train garowday. therefore awaamir bay maskaxdaadu bixinaysaa aanay ka fekerin. markan waad u fekeraysaa marka aad garanaynin oo xagga usii socday war xaggaad qabataa waad cabaar baad fekeraysa, intaad fekerayso meesha bay gaadhayaan. laakiin markaad train garaysantay maskaxdu uma baahna inay ufakerto war maxaad qabataa, ee automatically as a reflex action iyadaa iswadaysa oo meeshii lagu dhegi jiray adigoo ogeyn baad ku dhegaysaa. uma baahnid markaa inaad ka fekerto soo jeedo tiraahdo marka geedka la gelinayo mutuugan geliya salmsa triga ma fekeraysid, gacanta maad ka wadwata una caynkaan ubaad leeleeday maad fekeraysid. waayo you are training, waa lagu train gareeyey. mar haddaad shay training u noqotana maskaxdu logaritmkeeda si rasmiya ugu samaysmaa, dabeetana marka wixii loo baahday uu iska soo fulaa iyadaan looga baahnayn inay ka fekerto. idan nafta bini aadamkii waxay u baahantahay in la train gareeyo oo lagu train gareeyo siday u nadiifoobi lahayd. inaad tababartid oo ku tababartid khayrka, tababartid oo ku tababartid sharka saad uga controli lahayd, uga qaban lahayd, uga xejin lahayd. waxay u baahan tahay markaa wasaa'il. sidaa awgeed buu nabigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh markuu khudbadaynayo khudbat alxaaji buu akri jiray. khudbat alxaaji waataynu akrinay. waxyaabuu nebigu ilaahay ka magan gelaya maxaa kamid ahaa? wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wa min sayi'aati acmaalina. khudbadiisu nebigu bilaabaga ah ayay ugu jirtay. ilaahayna waxaan ka magan gelayaa naftan sharkeeda iyo xumayaasheeda ay samaynaysa buu ilaahay kasii magan gelayay subxaana watacaala. idan nafta bini aadamka waxay u baahan tahay inay ilaahay ku tiirsanaato, inaad xasuusanaato nafta tan iyo legdankeeda, inaad u baahan tahay inaad isdahiriso. nafta in la train gareeyo la dahiraa waa shaqooyinka ambiyadaba loo soo diro. u fiirsa qur-aanka. qur-aanka ilaahay wuxuu ku tilmaamaya dhowr shay oo laleeyahay waa shaqada ugu weyne nebiyadu qabtaan. kama arsalna fiikum rasuula minkum yatluu calaykum aayaatina wayuzakiikum wayucallimukum alkitaaba walxikma wayucallimukum ma lam takunuu taclamuun. وفي آية أخرى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وفي آية أخرى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الآيات إلهي وقلت الماما يا وظيفة الرسل شقد الرسول الله صادرة
كو وتلاوى بالي يتلو عليهم آياته أي البلاغ المبين إنه دكا قارسيه كلمة التوحيد إنه كد الأخريه آيات الله سبحانه وتعالى قوة كونية قوة وحيين آيات قدرت تصير وحكى الله شيء ويعلمهم الكتاب والحكمة العلم علم الكتاب والحكمة أو الكتاب والسنة إنه دكا وأقام بره وأقامتي هنون كتشت كنولات افتيمين يستينوا بره وحكى الله الرسول شكم دبا ليلي شقدوا ذا ويزكيهم إنه تزكية التزكية في اللغة والنماء والطهارة والبركة بينهما كلمة التزكية في عربي روح يكون طاي وكبع إيا نظيف إيا بركين ويزكيكم بالليل مركا إنه يدين كبعيه ونفت بني آدم كاهي waxay la mid tahay marka wax loo train gareynayo sida markaad yar tahay gacanta lagu qabtaa adiga lagu toosiyaa ha ku fina jabin ha dhicin baa lagu yiraahdaa kullu dalik waxa lagu train gareynaya inaad socon karto in lagu train gareeyo baad u baahan tahay dariiqa xaq ah inaad marto in lagu train gareeyo baad u baahan tahay dariiqa sharka in laga awdo idan waxa la yiri wayuzakiikum waxa alla uu soo diray rususha التزكية إني سميسو تطهير الأنفس نفط إني طاهر يشو حمها إني نفطك طاهر يشو سلاو قد بأن نبي الله إبراهيم عليه السلام إلهي مركو بريي وقال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم إلهي يوبولها ومضيدا ذريتيدا رسول يغا كميدا كصوصا ومحي قبطة كو أخرية إلهي آيات كيسة كتاب يصنع ضبرة ويزكيهم طهرة تزكية وطهرة سويت بالنبي صلوات الله وسلامه عليه وحف المامي حديث إمام البخاري في الأدب المفرد وكوار وريني أحمد يحاكم أنا صوصارين علماء بدننا بمجموع طرقه أيكون صحيحين يعني كالحافظ بن عبد البر إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو لأتمم صالح الأخلاق نبي قوحي صلوات الله وسلامه عليه وحاب الله يصدري عنيقا إن أنضم أيوه لقن كفي عنه إن أنضم يستره يعني بشركو مركز سيو قالوا بمعنى يدو موضى النقضي انه طاقن كو دمانتي كو دقورة وحباحنا مع هذا وحنا وصيها هياون انبيادي هريادتك صالحين تهري وحي كتغيرا نبي قوحوا لي وحا الربا ما فطرة قفبة ولي فطرة دي سويت كالسليم توان شياطين تواتقوا بضانين وحا الله يصدر يقول نبي قول لي صلوات الله وسلامه عليه إن انضم يستره لقن ككيسة وناكسا waxaynu u baahannahay inaynu masaa'il aada uga fakerno masaladani masale fudud maaha waa masale ama janno ku geynaysa ama naar ku geynaysa waa masale ilaahay qur-aanka dhaartay oo mufasiriinta qaarkood ay tilmaamayaan dhowr iyo 10 jeer dhaartaasi weeyaan mufasiriinta kuwa ugu yarina ay leeyihiin 7 jeer weeyaan والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إلهي وعدارت تضبع يدود كوني الله قدارت هذه قفرون شيء بيجري مركب ربع أو قاعتين أو ورقو شيء واللي بالله راعيه محمد ملايين يعني وين قدر أن تدوي يا مركن ورع علوصات فريستين أنا يا حين إن أدلك تسوي نتنو قليتين مركي هرب إنك وركي سويت رميتين الرم بدو هيجتي لكن هطول دار سمعني هذا وحويان إنه موتشين اليوم والرم قرا هيجا قادنا الروح خطر وغاضر هدو رب السماوات والأرض دارتي إلهي ما دارنا يا وأن مرة هين أو لبا هين أو صدح هين أو أفر هين أو شر هين تضبط شير دارنا يا
mufasiriinta qaarkood say tilmaamayeenna 11 jeer dhaaranaya haddaad washamta iyo waduxaha laba ka kala dhigtid oo aad saa u wadid ilaahay baa cadceed ku dhaartay iyo barqinkeeda ku dhaartay dayax iyo daba socodkiisa cadceedda daba socdo maalin iyo faydanteeda والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها إلهي مكو صار دارته سبحانه وتعالى دارتا محاجة بالجبوة وحاجة بالجبوة قد أفلح أي لقد أفلح لام الموطأ للقسم ولا قصر ربال إلى ضمك يا دارات قسم أي لقد أفلح من زكاها واللي باني با إلهي إليه سبحانه وتعالى كي نفتي تطهري أما كي قال له نفتي تطهري بفضل الله يوم بيكون طاهرا طاهر نفتي إلا طاهر يالي إلا الذي فيه واللي باني با إلهي إليه وقد خاب من دساها وهو غيباء لله سبحانه وتعالى نفتي إلا آصي إيان لا نظيفنين إيان لا طاهرين وهو كتي إذا مسألة فضود معها ومسألة كسليسان إلا هوغو إيا إلا الليبانو وهل لنا الرسوش وحا الله صدر إن فها كبرية قوقي إن إصلاحيان وهقاتيان وطاهران إن حق تصيان بعد الدعوة التوحيد لا إله إلا الله مركا إلى هدان كديم محوق لها النبي موسى فرعون هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى وفرعون هل لك إلى أن تزكى ورمكوسك أنت إن النفس هذا طاهر يشوف إن تسفيع نيسيسه وأهديك إلى ربك وأن إلهنا كوهر سبحانه وتعالى قدبت أنا فتخشى هذا لك عبستك تنمكوع تنطاه وحل هذا النفس طاهر لماذا هو مسألة مهمة ومسألة أنه لنا الجنة بوصفك سريع يضع الغقلة إلهي بقراك وحكوليه ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى إلهي بقراك سبحانه وتعالى قيامها منك يما ديسغو إيمان كسبا عمل ونكسن نسو سميي كوا سبوت كي قليان جنة ميل سريك قليان jannada nagaadigaa bay gelayaan janno hoosteeda webiyaal dareerayaan bay tegayaan waa meel ay ku waarayaan ilaahay muxuu leeyahay markaa wadhalika jazaa'u man tazakka kaasi baa la yidhi subxaana wa tacaala waa abaalmarkii ciddii naftiisa dahirtay ee hagaajisay abaalmarkeedii weeyaan naftayna daahir yeesha markaa ma fududa waxay u baahan tahay معونة الرحمن إلهي إن ذوك على ما يسطه إن إلهي كتير صطاد وباهنتهاي وهذا إلهي ويدي تسينو تندح هذا كتير توك هاجا جرجارو طريقة سنين يمرطين وقال وهو جرجارو وهي نفس قرآنكم مروح كشجينا تي الأمارة بالسوء إن النفس لأمارة بالسوء نفس بالليل لأمارة ومد أمرد بدن لآمرة لمورا لأمارة بالسوء بالليل ومد حمها فرس بدن وكو سوء هذا مرق رايدا كفرتون مركا آمدي دم يلاي كاهر توحما يهاتين شهوات كذا يهود يا وحي دوني سي ماشي الربطة وهبين يا مالين بواتشوك وكو سوء العلنسة حمها وافر طابان لي سبحانه وتعالى لكن نفت عين قاسية هدي للربيو لكبعيو طريقة لوحجيو وكوري كرتا وحي قاري كرتا تإلهي ليه محي لا أقسم بالنفس اللوامة أقول دارنا يا بالا ليه سبحانه وتعالى النفس اللوامة تيس عنانته حيث عنانته وحي هذا خير كويسكو عنانته بضي بيلا ذي مركزته صوت اللغو نافي خير ويسكو عنانته آخرنا ددك وناكسني markuu jannada iyo waxa la helaya arko wuxuu yiraahdaa nacasnimo ku raacday meelihi aad iska fadhiday dhulkii aad joogtay ma waxaan shaqadan baad kororsan kari weyn wuxuu isku canaantaa wixii uu beerdareeyay waqti ahaa iyo kan
nafta wanaagsani markay xumaha samaysana way iscanaanataa oo ma ilaahay baad caasiday buu yidhaahdaa toobad iyo naftu dib bay isu canaanataa oo nadamku waa min shuruudi tawba inaad ka murugooto xumaha samaysay waa shardi ka midaba shuruudda tawbada idan heerkii hore xumafarka way kasoo kobacdo waxay iman kartaa annafs allawaama waxay culamadu yidhahdaa way kasii kori kartaa oo xaggay gaadhi kartaa annafs almutma'ina tuxasiloon iyadu khayrkunbaabay ku degantay sharka waa ka indhalaaday way korsay oo way dhaaftay yani waa naf ninkii lahaa uu baraqa ka jaray yani tamartan iyo kibirka iyo waxaasoo dhan wuu ilowsiiyey waa nafuu ninkii lahaa isagu kooraysto faras ka dhigay ama iyadaa ximaarkaa dhiganaysa ay fuusho ama adaa farasaad fuusho ka dhiganaya waa labada midun inaad khayrka adigu ufuusho iyo dameer ay sharka ufuusho inaad noqoto waa midun idan annafs almutma'ina alaa bidikri illahi tatma'inu lquluub waa nafs ilaahay ku xasishay oo alle xasiloonidiisa xuskiisa garatay sida daraaddeed ayuu nabi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh ilahay wuxuu ka magan gelayay wanacuudu billahi min shuruuri anfusina ilaah adigu nafta nooga gargaar buu lahaa sharkeeda ilaah adaan kaa magan galay buu leeyahy nabiyullaahi yuusuf markay kusoo kartay muxuu lahaa naagtii markay heshay xagga iska dhalaalisay guriga uxidhatay boqorku qabay ee meesha sare joogtay ay halaakeysay khatarta gelisay muxuu nebi yuusuf nasbiday markii hore macaad allah buu istaagay markay haddana haweenka kale ugu sii yeedhatay ee kooxdu isugu timay faraha la isjarjaray ee inay tidhi lain lam yafcal ma aamuru layusjanan waxay tidhi anaa doonay fastactam waa i diiday laakiin ballan waxaan ku qaaday bay tihi waxa aan ka rabo haddaan ufulinin inaan xabsiga ku ridi doono ee dumarkii kale u markhaati furan ay yidhahdeen kani mid laga sabraba maaha xagguu u cararay nebi yuusuf muxuu yidhi wuxuu u cararay ilaahay subxaana watacaala isagoo leh ilaahay xabsiga agteyda lagaga jacayl badayay waxay iigu yeedhayaan haddaanad adigu ii gargaarin oo ii hiilin asbu ilayhina waakun min aljaahiliin wain lam tasrif cani ilahu haddaanad kuwan adigu iga kaxayn buu leeya o adigu iga weecinin asbu ilayhin waakun min aljaahiliin waa ku dhacaya waxa kanoo jaahiliintan ka mid noqonaya idan qofka mu'minka ahi wuxuu ku badbaadaa kow xuma markuu arko inuu ilaahay xasuusto inuu ilaahay tala saarto inuu ilaahay magan galo saa daraaddeed buu nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh isagoo khudbadaynayo dad la hadlaya ayuu wuxuu leeyahy wanacuudu billahi min shuruuri anfusina naftu xataa iyadoo xaqa sheegaysay khatar tahay iyadoo xaqa sheegaysa ayaa isla weynay gashaa istidhaahdaa dadku waa masaakiintaa ku hor farfadhiyo uno de adun baa wax sheegaya guruur iyo kibir iyo cujbi galaa isla weynaya ay gashaa waxa uu sheegayo o dham ay khayr beelaan haddaanu ikhlaas qalbigiisa ku jirin haddaanu naftatan tirayn garaynin oo ilaahay ku xidhan subxaana watacaala walidalik buu nabi moxamed isagoo dad ukhudbadaynayo wuxuu leeyahy wanacuudu billahi min shuruuri anfusina ilaahay waxaan ka magan gelayaa naftan sharkeeda maxaa kamid ahaa ducooyinkii nabiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiidkii saxiixu muslim ku yaalay wuxuu nabigu laha maxay allahuma aati nafsi taqwaha wazakiha anta khayru man zakaaha anta waliyuha wamawlaaha wuxuu ku ducaysanayay allahuma aati nafsi taqwaha ilaahay ou naftayda alla kacabsigeeda adigu sii wazakiha ilaahu adigu dahir adigu nadiifi anta khayru man zakaaha ilaahu cid wax dahirta o wax nadiifisa adaa u khayr badan anta waliyuha wamawlaaha ilaahu tan adaa gacanta ku haya adun baa hogaamiyo maamula ilaahay o adigu ii hagaaji buu leeyahy nafta idan naftu inay daahirsantaa waxay u baahantahy inaad ilahay in badan u barido inaan cujub iyo gurur ku qaadan inaad sodhan nafta waad xakamayn karta war waa khatar idan ilaahay la kaasho inaad ilaahay aada ula kaashatid in ilaahay subxaana watacaala naftatan kula xakameeyo waana ka ilaahay qur-aanka ku tilmaamaya walawlaa fadl llahi calaykum waraxmatuh ma zakaa minkum min axadi abada walakina allaha yuzaki man yashaa
ilaahay baa wuxuu leeyay walawlaa fadlu llahi waraxmatu. dadow haddii lala-yahay ilaahay dheeraadkiisa iyo naxariistiisa haddii lala-yahay, in ilaahay xaqa idin waafajiyo, in isagu xaqaba idin soo dejiyey, inuu rusul idin soo diro. waayo raxmadiisa maxaa ka mid a wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin. hidaayada dhammaanteed baa naxariistiisiiya. inuu xaqa ku waafajiyo bitawfiiqi ayaad xaqa ku waafaqaysaa. haddii ilaahay kaalmadiisa iyo gargaarkiisa lala-yahay, dheeraadkiisa iyo waxtarkiisa haddii lala-yahay baa ilaahay yidhi maa zakaa minkum min axad. mid idinka idinka midaba ma nadiifoobeen ba la yidhi, cidiba idinkama daahirsateen. ma zakaa minkum min axadi abada walakina allaha yuzakii man yashaa. ilaahay baa tahira ciduu doono. idan tahaarati nafsi halka koowaada loo galaa waa ilaahay baryadiisa. inaad ilaahay barido subxaana watacaala inuu tubta toosan kugu riixo, inaad ilaahay barido inuu naftaada kula qabto. naftu inay tahirsanto iyo waxyaabay ku tahirsanto waxyaabaa lagu garto waxaa kamid a. wuxuu nabigu yihi salawaatu llahi wasalaamu alayh, xadiidka imaamu abu daud uu warinayo ee sheekh ilalbanina uu صaxiixu ljaamica kusoo aroorinayo: ثلاث man facalahuna faqad daqa طacma اliiman. ثلاث man facalahuna faqad daqa طacma اliiman. saddex qofkii sameeyaa buu nabigu yihi salawaatu llahi wasalaamu alayh, wuxuu dhadhamiyey iimaanka dhadhankiisi. iimaankuu dhadhamiyey. saddexdu waa maxay? waa man cabad allaha caza wajal waxdah liannahu laa ilaha illa huwa. waa qofka alle keligii caabuda ee gaalnimo dhammaanteed meel iska dhiga, aqbala inuu ilaahay u hogaansanaado. waayo nafta waxa koowaade laga tahiraa waa qooq iyo kibirka. waa ay diiddo dee addoon bay hayda addoonnimada ay diiddo oo isaga taagto. hadday addoonnimo diiddo najaasadii koowaad baa gashay. inama almushrikuuna najas. waxay ahayd naftu inay ilaahay addoon u ahaato. saa daraaddeed wuxuu nabigu leeyahy salawaatu llahi wasalaamu calayh, qofka ilaahay caabuda, man cabada allaha caza wajalla waxdah, ee bixiye buu nabigu yihi waacطaa zakata maalih طayibata biha nafsu fi kuli caamin, ee bixiya xoolihiisa zakadeeda dhiiba sanad walba, isagoo naftiisu ay raalli ka tahy. yani xoolo jujub lagaga qaadiyo waxaan ahayne arkaya inuu naftiisa ku tahirayo dhiiba, ee aan bixinin buu nabigu yihi salawaatu llahi wasalaamu alayh, ta gabowday ama ta liidata ama ta bugta ama ta xun. ilaahay idinma weydiisan ba la yidhi xoolaha kuwa ugu fiicane, idina de kuwa ugu liitaha dhiibina, kuwa dhexdhexe dhiiba zakadii markaad bixinaysa. wuxuu kaloo nabigu yihi wazakaa nafsah. saddex shay buu xadiidkani tilmaamaya. ka koowaad waa inaad cibaadada ogolaato iyo addoonnimo. ka labaad waa inaad gacanta halkan ku xidhine aada xaggan u fidiso oo dhiibto oo zakaat iyo wixii kugu waajibiye sadaqaadka iyo khayrka aada baxsatid. ka saddexaad wuxuu nabigu yihi salawaatu llahi wasalaamu alayh wazakaa nafsah, naftiisana tahiray. nin raggii meesha fadhiyaya baa wuxuu yihi ilaahay rasuulkiisiiyow, oo waa maxay nafta tahirkeedu? maxaa lagu tahiraya? yani naftanaa tiri waa la tahiraya, waa sidee daahirkeedu? wuxuu nabigu yihi an yaclama ana allaha caza wajala macahu xaysu kan. masalat almuraaqaba buu nabigu ku sharxay. waa inuu qofku garto meel kastoo uu joogaba in alle subxaana watacaala uu daalacanayo. haddaad taa garato macnaheedu waxay noqonaysaa in aada xishooto ilahay ka xishootid, ood macsida iska ilaalisid, ood xumaad ka fogaatid. idan waxay leenahay taskiyadan aynu u baahannahy waa taqwo un. falaa tuzakuu anfusakum huwa aclamu biman itaqa. waa naftiina ha amaanina baa ilahay yihi subxaana watacaala, huwa aclamu biman itaqa. ilahay isagaa og ka alle ka bacqaya ee ka cabsanaya. qad aflaxa man tazakkaa wadakara sma rabbihi fasallaa. ilahay baa wuxuu leeyahay qad aflaxa man tazakkaa.
waxaa liibaanay man tazakka ay man tatahhar ninka naftiisa daahiriya oo wadakara isma rabbihi fasalla oo ilaahay subxaana watacaala magaciisa xusa oo tukada kaas baa liibaanay baa ilahay leeyahy subxaana watacaala. naftu waxay ku daahirsan tahay in xanuunadeeda iyo madmadowyada iyo guracyada ay leedahay shahawaadkeeda xisiga iyo kuwa macnawigaaba in laga ilaaliyo. waxaanaynu leenahay nafta ha laga daahiriya waa maxay? waa in laga daahiriyaa gaalnimo, shirki iyo kufr. waa in laga daahiriyaa maxay? nifaaq. waa in laga daahiriyaa maxay? istus iyo riyaa. waa in laga daahiriyaa maxay? cujub iyo guruur, isla weyni iyo guruur ku qaada. cujbigu waa ma waxaa laga yaabaa waxoogaa yaroo acmaala inaad samaysato saalixa, laakiin ay kula buunbuunsanaato unaad tira wallahi ragga cidimo kaama horayso. waxay ahayd inaad markaad dhamaysato ilaahay uga istaagfuralaysatid. maxaa la yidhi salaada tukada markaad salaada dhamaysa maxay dheh? 3 jeer astaqfirullah astaqfirullah astaqfir, kaanaha inaad cudur daaranayso salaadaadu siday u liidatay. uma afiidu min xaytu afaada annaas wastaqfiru llah. idan inaan cujub iyo guruur ku gelin. in nafta la daahiriyo maxay laga daahiriyo? jaah iyo magacdoon, xub alri'aasa walburuuz. nafta bini aadamku inay muuqato way ku abuurantahay, laakiin haddaad meel isleeda ku muuqo xagga cibaadada ilaahay ku muuqo. wajcalnii lilmuttaqiina imaama. kuwii saalixiinta markay ducaysanayeen maxay ku ducaysanayeen? wajcalnii lilmuttaqiin, ilaahu kuwa alle ka cabsada imaam iiga seeni. masaladani tawaaduc uma baahna, waxay u baahan tahay maxay? ilaahu cibaadada xagga hore kuwa ka taagan iga dhig weeyaan. inta muttaqiinta ilaahu aimadooda igu dar. laakiin waxaa loo baahanya inuu qofku naftiisa ka daahiro hunguriga kanay kursi iyo magac iyo maamuus ay raadinayso, oo uu magaca iyo maamuuska xagge ka raadiyo. wajcal lii lisaana sidqin fi laakhiriin, inuu ka raadiyo aakhira iyo wanaag. inuu ka raadiyo maxay? nafta inuu ka tago xuduudi nafs. nafta iyo waxay doonayso o dhan. naftu hadday waida acjabatkum kasratukum falam tugni cankum shaya wayawma xunaynin baa ilahay yihi. bal waxaa xasuusataan maalintii xunayn markay naftu idin yaab gelisay baa ilahay yidhi waxbaba idinka tari weyday. waa saxaabadii nebiga kuwa caynka lagu leeyay. waxaynu u baahanay markaa in nafta la daahir yeelo oo laga daahir yeelo adduunka iyo jacaylkiisa iyo waxa ku xidhan oo dhan, shahwaatu nafsiga oo dhan. naftan in aakhiro loo rabeeyo. walidalik baa raggii ragga ahaa, matala cabdillahi ibnu muxayriib nin la odhan jiro caalima, culamadii sham deganaan jirtay, caabidu sham baa lagu tilmaamay inuu ahaan jiray. cabdillahi ibnu muxayriib baa waxaa la yidhi meel buu yimi waxbuu iibsaday. ninkii wax ka iibsaday markay wax kala iibsadeen bay qola ku yidhahdeen war miyaad garanay ninkaad wax ka iibinayso kii wax iibinayay? suu yihi may. markaasay yidhahdeen war waa sheekii la odhan jiray cabdillahi ibnu muxayriib. oo maxay u sheegi weyday? cabdillaha xanaaqay markaa. dadku maxay rabaan inay u sheegaan ninka kan inuu dee sheekh hebel iyo caalimkii reer shaame laga dambeeyey. taa macnaheedu waa maxay? dee gorgorta gawadaadkaan ku yara adkayni weeyaan inuu wax ka dhima bay doonayaan. oo dee sheika uu yaraa ninkani waa caalimkii dhammaay ay kaba dambeeyeen reer shaam. laakiin sheekoodii wuu ka cadhooda. wuxuu ku yidhi ya naas inama nashtari biamwaalina walaa nashtari bidiinina. war miyaydan ogeyn buu yidhi inaan xoolahayga wax ku iibsanayo ee inaanan diinta wax ku iibsanaynin. yani diintan aan rumaysnay ilahay baan wax kaga doonayaa buu leeya. dadku in lacagta badh laygaga daayo uguma socdo. diinta aakhiraan ku wadaa buu leeyay. war dadka xoolahaygaan wax kaga iibsanayaa buu leeya. aniga ninowna waa sheekh hebel iyo baabka iyanan isula imanen. xoolaha si a wax u kala iibsan jirteen un baynu wax u kala iibsanayna. idan ninkan caalimka ee muslimka ahi darsi buu barayay dadka kana ah inaanu alla kacabsigiisa kan rabin in kursiga loogaga kaco. alla kacabsigiisa kan inaanu ku rabin in wan loogu qalo. alla kacabsigiisa kan inaanu ku rabin in tijaarada hoos loogu dhigo. walidalik baa raggii saalixiinta ahaa maxaa kuwa fog u raadsan. ibnu baas raxmat ullahi caleyhi dhawaan dhintay ayaa waxa la yidhi nin muslimoo lacag u dhiibay. wuxuu ku yihi war dukaankaa tag oo masaajidkaa rooga kuga soo iibi oo ha ku odhanin buu yidhi ibnu baas ba isoo diray.
kii wuu cararo meeshii buu tago war roggani way mutawaacan kano intano war sheekh ibnu baas baa soo diray masaajid baa la rabaaye intaad siinaysaa buu ku yidhi qaad buu ku yidhi mar hadduu sheekh ugu soo diray wuu soo qaaday alaabta ibnu baas markaa uu ka xanaaqay wuxuu ku yidhi war miyaanan ku odhanin ha ku odhanin ibnu baas baa ii soo dirtay ha ku odhanine lacagta maxaan kuugu dhiibay wax kusoo iibisoo kumaan lahayn lacagtan qaad oo masaajidka alaab ugu soo iibaan ku ihi ee hebel uta kumaan odhan oo ibnu baas baa masaajidka u doonaya alaabe soo dhigdhi kumaan lahayn yani maxay uga jeedaan dadkan saalixiintii waxay rabaan inay lacagtooda wax ku gataan may rabin wejigooda iyo magacooda inay hantihu ku helaan oo ay dhaqaale ku qaataan saa daraaddeed ayuu wuxuu leeyahay cabdillahi ibnu muxayrin inama nashtari biamwaalina walaa nashtari bidiinina idan qofka muslimkii wuxuu u baahan yahay naftiisa inuu ka tahiro min xubi iljaah waalsulطaan wاshuhra intaba inuu ka daahir yeelo wuxuu u baahan yahay naftiisa inuu ka daahir yeelo xaasidnimo inuu ka daahir yeelo shux iyo bakaylnimo inuu ka daahir yeelo adduun jacayl inuu ka daahir yeelo maxay naftaadu waxay doontaba inaad iska raacdo ilahay muxuu qur-aanka ku leeyahy waama man khaafa maqaama rabbi wanaha الnafsa can اlhawa faina aljannata hiya alma'wa ilahay baa wuxuu leeyay waama man khaafa maqaama rabbi qofka ka cabsada ilaahay suurtaagiisa oo wanaha الnafsa can اlhawa naftiisana ka reebay hawadeediiyo waxay iska doontay naftu waxay ku tidhaahda haddaad raacdo maxaad noqonaysaa afara'ayta man itakada ilaahahu hawaa waadalahu allahu calaa cilmi ilahay baa wuxuu leeyahy bal ka warama kii naftiisa ilaah ka dhigtay baa ilahay yidhi saaad ilah uga dhiganaysaa yani waa inay noqoto waxay ku amartaba inaad fuliso inaad iyadoo daba gasho waa ka naftiisa ilaah ka dhigtay ka warama baa ilahay yidhi waadalahu allahu calaa cilmi waxaa la rabay markaa muxuu ahaa waama man khaafa maqaama rabbihi wanaha الnafsa can اlhawa faina aljannata hiya alma'wa ninka naftiisa ka reeba waxa iska doonayso oo dhan u taliya ee aan iyada taladeeda aqbalin waa kii saaxib lburda albusiri busiri ninkii la odhan jiray gabayaaga ahaa ee burdaha lahaa burduhu waa gabay qayb fiican iyo qayb xunba leh soomaalidu malaa dadka bukaabay ku akrin jirtay waxba nin buka gabay kama tare waa gabay une burduhu waa gabay soomaalidu ay akrin jirtay gabaygaasi qaybo fiicanna wuu leeyahay qaybo xunna wuu leeyahay qaybo aan qurux badnayn oo guluwi ku jirana wuu leeyahay haddii daahirkiisa loo eego qaybo qurux badanna wuu leeyahay qaybihiisa quruxda badanle waxaa kamid ah wannafsu kaطifli in tuhmilhu shaba calى xub الridaaci wain tuftimhu yanfatimi qaybihiisa quruxda le waxaa kamid a wuxuu yihi naftu waa ilma caruur oo kale un haddaad ilma caruura naaska la iskaga sii daaya buu yidhi o iska jaqown isagu daaba ma yaqaano wuu wadi un 2 jir 3 jir 4 jir wuu iska wadi un bu leeyahy haddii laakin laga jaro waa ka go-a un bu leeyahy ilmaha marka naaska laga daynaya maxaa la sameeya isagoo weli isagu naaskii rabun ba islaanta u diidaa 2-3 cashu ooyaayo kolba islaanta kusoo yara ag wareegaayo marka la eriyo iska tagaa waa soo noqdaa berri haddana yara maacuudiyaayo isku dayaa 2-3 cashe marka la eriyo maalin afraadda waddu iska qaadaa maalin dambe naas ma doone dee dadkiisu dhinaca kaga biira naftu buu leeyahay ninkan busiri la yidhaahdaa waa ilmaha yare naaska laga jarayo waxaad u diida buu leeyahy 2-3 cashe way ku warwareegi haddaad dee ma jirto tidhaahdo oo beri markay soo wareegto ma jirto aad tidhaahdo 2-3 cashun haddaad adkaysata buu leeyahy marka dambe tubtay qaadaysaa u baahan mayso shaygaas balwad iyo wax kastaaba waa inta aad ka goynayso inaad uhayso maxay subtida inaad intaa uhayso haddaad intaa ka adkaysato berrito waddada toosan bay qaadaysaa saa daraaddeed bu wuxuu lahaa busiri gabaygiisaasi fasrif hawaaha waxaadiran tuwalliihi ina alhawa ma tawallaa yusmi aw yasami ka fogow buu lahaa hawadeeda ka durki buu lahaa oo iska ilaali inaad iyada daba gasho damax ka dhigata buu sheegaya gabaygiisaasi qaybaha quruxda badan le waxaa kamid ah
وخالف النفس والشيطان واعصهما وإنهما محضاك النصح فاتهم نفس بويري هي الشيطان ورلبدا عاصي بويري وحتى هداي كula taliyaan buu taladooda toon talaha u qaadan tala nafta ka timiya shaytaan hadaad maqasho tuhum buu leeyahay taladooda idan ikhwati fi al-aqeeda waxaynu u baahanahay inaynu naftan rabbayno oo ku rabbayno tawxiidka ilaahay subhanahu wa ta'ala tawxiidku waa maxay inay kibir oo dhan intay ka timaado qiraso adoonnimo tawxiidku waa inaad aqbashid inaad ilaahay adoonkiisa noqotid inaynu tababarro maxay al-ikhlaas inay jaah iyo magac iyo sultad iyo waxaan intay ka tagto acmaasha ay sameynayso ilaahay ula niyoto iyo janno iyo maalinta aakhire inay wanaag ku hesho inaynu tababarro oo maxay ku tababarro as-sidq wa kunu ma'a as-sadiqin inay run sheegto oo waxa ay rumaysantay ka run sheegto oo aqwaasheeda ka run sheegto oo afcaasheeda iyo axwaasheeda oo dhan ka run sheegto min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu allaha calayh waxay rumaysanaayeen bay ka run sheegeen kunuu maca asaadiqiin afkaad ka run sheegaysa inaad run sheegtid axwaashaada oo dhan waxaynu u baahanay inaynu rabbayno ku rabbayno cala almaxaba walkhawfi walrajaa inaynu rabbayno ku rabbayno cala alwaraci walsabri walmuraaqabati waltawba manaazilu saa'iriin bayna iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin inaynu ku rabbayno oo halkaad shalay joogtay aanaad maanta joogin haddaad meel qura ku hayso haddaad naftan matalan shanta salaadood iyo intaa ku hayso oo aad hore u wadi weydo berri dumaad arkaysa iyadoo shantii iska soo geejinayso bar dayacaysa laakiin waxaa loo baahanya inay kor u socoto ha isku dayin weligaa inaad meel taagnaato haddaad meel taagan tahay nuzuulkumaa bilaabmaya dib u dhuxunbaad bilaabaysa laakiin weligaa waxaad isku daydaa sanadkii hore halkaad joogtay inaad sanadka daba taagnaanin aqoon kororsataya cilmi kororsataya cibaado kororsataya horumar inaad hore u socoto ku day hadday se shay uu meel istaago waxa bilaabma u nahay nuqsaantiisii istimraariyadu wax fudud maaha cibaadaadka layna baray oo dhan waxbay rabeeyaan مثلا صلاة إلهي محولي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صلاة هدي سيدي دي اللورد الصلاة وسيدي اللي يدي اللي تكدو والله قرم شيغو ويدو عقلك وسوى شيدا اللي تكدو وقرتيد فودا وحاطوك وحقيسو تنهى عن الفحشاء والمنكر با إلهي حما يزينة با يضع ريفتا با إلهي سبحانه وتعالى هدي صوم ونقضى كي لو باهنا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون با إلهي صوم با ليدكو واجب يالي سيكو إنك يدكو الرئيب الله واجب يالي محال لو واجب يالي صوم كوينو قصدي سيدا ليوام حي لعلكم تتقون هنا إلهي كعصتان الله كعبتين كو قادان وصومكم محنو صبين يوحى لقول مركز صومته وها عاي وها ماغي همرمي عباديسو ذكر قبضي كان سماه إذن حمود النوات كسي فقانيسا سماء النوات سي سمينيسا معنى هدو حوية نفسنا إنها تربينيسو كورينيسو إن الطاهر ياليسو وناكا أسكو طبابريسو حاج تقبال لينيسو وحوله نينت أقادتان دالة وهلكا تقا أو أرض أو صعد أو عديد محال فائدية يعني ما ينفت للدالية وما الله قلت لك انت حولي يلعق بحسوات مكتكتد بورتا مكونية دنعية دينا عرفتد ومرددك بدنا بيحسد بدنا تشيدد ومركا الله فريستنا تشيكي سيدوتي هذا بالسياسة ديك والربي يريري والحقية وحمرين ايه ما سوكر ديكي مركا لعق دينا واضح حيقية دالة وسوكر ديني سايد أصل كوحها وحا ليدي ماشا تقع حال لو تقيا فلا فسوق ولا رفث ولا جدال فاسق نما أردن إيه وركيد مال ديغا مرن إيه دودي ميلسك ديغا وحاس أردن كتك محال الربا وحال الربا good training practical إينا داركتو بعد تلاقي هالكي مركز كتشوكتو والله ندو القاد بدن وادنغوني سابا نصبر بدن لكن مركز مال يروح عيدي يسوق الشيء حقا لقاسو الريحة حقا لقاسو الريحة محاطبين وارنا قدر كينا تلاعضو iyana tilaawar muslimka hadib in bal siyaran dhuubuuna halka ka bixi karta ka bax waa practical waa sabirkii lagu waaninayay dulqaadkii lagu waaninayay wixii lagu waaninayay baa la rabaa inaad practical u soo fulisid inaad soo aragtid inaad dareentid maxay sawaasiya
meel nin madow iyo nin cad iyo nin xoolo lahaa iyo nin magac lahaa iyo nin hebel la odhan jiray iyo miskiinkuba ay wada guclaynayaan oo laba maroo cadcad sitaan oo aan boos gaari jirin. haddii aad magaalo iman lahayd waxaa laga yaabi lahaa inuu jeebkaagu un ku xukumi lahaa. meelaha masaakiinta joogta iyo buuqa iyo waxa inaad iska dayso waxaa laga yaaba maanta qoladeenan dabadaa joogtaa markay Soomaaliya tagaan waxaa la yaro raadiya war hodheelka magaalada ayaa u yaro nadiifsaniyo marka hore wuxuu ka fikiraya hodheel yaro nadiif inuu tago caynka mar raba tabaqaadka caadiga inuu dhex galo beel yaro nadiif oo meelihii uu ka yimi uu yaro eeg ayuu rabaa inuu galo. halka kan laakiin waxaa la yidhi hodheel iyo waxaas ma jiraan banaankaasna wada jiifsada isdhex yaaca ama hanti haysa ama ha haysanin halkaa un dadkaaga iska dhex orod. idan waa maxay waa practical la rabo in iimaan lagugu tarbiyeeyo dhaqan iyo akhlaaq in lagu baro. waxay leenahay marka cibaadaadku haddii sidii loogu talagalay iyadoo dadku u fahamsan yahay ay u fulinayaan macnaheedu waxa weeyaan in la daahir yeelayo naftan oo la daahir yeelayo. zakaa la yidhi bixi maxaa loo bixinaya khud min amwaalihim sadaqatan tuطahiruhum watuzakiihim biha baa ilahay sadaqa ka qaad naftooda iyo maalkooda iyo wuxoodaba lagu daahir yeelayo. waxaan kusoo koobaya waktigii waa gebagebo waa dhamaaday. wax waliba waa barasho. nebigu wuxuu yidhi inama alcilmu bitacallum wa inama alxilmu bitaxallum. cilmiguna waa barasho buu nebigu yihi. qof waliba wuxuu dhashay isagaa waxba garanayni laakiin qof waliba intuu yaqaano noloshuu ka faa'idaysto uu bar. dulqaadkuna buu nebigu yihi waa barasho. barasho maxaa looga jeedaa naf waliba waxay leedahay limit bay leedahay marka hore genetically wixii lagu abuuraya laakiin waa la train garan karaa waa la kobcin karaa. kobacaasi wuxuu keeni karaa markaa inaad dariiqii xaqa ahaa aada marto. waa laga yaaba maalinta hore inaad cadhooto shay laakiin haddaad naftan isku daydo inaad xakamayso waad tidhahda horta caydu xaggey dadka yeeshaa maxay ku dhuftaa qofkan isagun baa caytama adiga halkee ku go-aysa haddaad iska dhaadhiciso dan hadduu ku caayo hadduu ku ammaano qiimo badan midna kuuma sameeye waayo wasaad adigu ufakertay ku xidhantay. waxaan leeyahay marka ilahay wuxuu nabiga kusoo diray waxaa kamid ah wasiyaabaka fatahir ya ayuha almudathir qum faadir warabaka fakabir wasiyaabaka fatahir. siyaabka culamada qaar baa qulubta ku fasiray qaar marada sare. tahaara jismiya iyo badaniya iyo nafsiya labadaba waa laynaga rabaa inaynu kor iyo kalba daahir noqono. dee ragow iyo dumarow waa isku daro naftani barbaarin iyo kobcin bay u baahan tahay. waa la istusayaa ariiqa lagu rabeeye ha loo dadaalo. wallahu aclam billahi tawfiiq. ilaahay subxaanahu jala wacala ajar iyo xasanaad haka siiyo walaalkeen sheekh mustafe muxaadarada qayimka inoo soo jeediyey. innagana allah inaga dhigo kuwii wanaageeda qaata ee ku dhaqma. waxaan jecel lahay 4 su-aalood oo gaagaaban inaan ka daba turno muxaadarada. sida awgeed waxaa la idinka codsanaya maadaama shiikiiba uu weli fadhiyo inaydaan idinku ka hor yaacin haddii abeedno. 2 su-aalood oo aan isku soo qabtay waxay ka yimaadeen dhalinyaradeenna yaryar oo aad ogtiin inay baahi badan u qabaan runtii xagga diinta. gabadh baa soo qortay waxay leedahay waa inuu qofku guursado waxayna wada dhalay aadan iyo xaawo ayna wada dhalay sida awgeed waxaynu nahay walaalo. haddii aynu walaalo nahay sidee baynu isku guursanaynaa? waxa la guursanayo waxaan la guursanaynin ilaahay baa sheegay subxaana watacaala. yani maaha masale caqliga lagu baxtiyo waa masale waxyigu uu tilmaamayo. aadam wuxuu dhalay tiro bate kala tage kuwii hore uu dhalay baa walaale kuwa imika joogaa dee walaale maahe adeero iyo ilma adeeriya waxbay wada noqonaya haddii dee si soomaalida u tirin jirtay loo tiriyo nin waliba intuu aadan ka tirsanayo haddii lasoo tiriyo ama adeer baa isu noqonaysa ama ilma adeer ama awow meelahaasay soo baxaysa. cala kulli xaal qur-aanku wuxuu sheegay cid gaara oo ay mamnuuc tahay. wuxuu sheegay wixii adiga kaa farcama inaad guursan karin wixii asalku ana inaanad guursan karin. wixii adiga kaa farcama kaa dhashay kuusii dhalay adiga kaa farcama
iyo wixii adiga asal ku ah aabe awow yani ayeeyooyin hooyooyin xaggaa mar labada midna inaad guursan karin. xawaashida wixii hareeraha kaa xiga waxaa la sheegay kow labadan ugu dhow un walaashan iyo kuwan ugu dhow ee aabbo la walaala ama hooyo la walaalaa. xawaashida ka dambaysa kuma jiraan. yani kuwa ugu dhow waa maxay? waa habaryar iyo eedo ama adeer iyo abti. xaggan kalena waa maxay? waa adiga dee un walaasha. ama kaa wixii dhaafee ka dambeeya kuma jiraan. yani in adeerta iyo habar wadaagga iyo in abtida iyo waxaas oo dhami waa iska banaayiin, kuma jiraan. xagga kale waxaa la sheegay gabadha aad qabto ama xaaskaaga yani iyadana inaanad dee hooyadeed iyo ayeedeed iyo kuwa inaad guursan karin. idan waxaan uga jeedaa un aadam wuxuu dhalay basharinimadun bay maanta wadaagaan. waxa badan oo kale ay wadaagaan ma jira xagga marka laga eego. shareecadu waxa ay tidhi yaan la guursanin, ilaahay baa jideeya. masalan aadam waktigiisii bashar kale ma jirin. ilaahay wuxuu jideeyey aadam kuwuu dhalay inay isguursadaan. bale waxaa la jideeyey aadam kii laga abuuray inuu guursado. xaawaso isaga lagama abuurin, haddana isaga ayaa la yidhi uu guursaday. ilahay ba u sharciyeeyey. aadam kuwuu dhalay waxaa la faray inay iyagu isguursadaan ba isu banaanayd. ama alaan inaga sharcigeenna nebi maxamed loo soo dhibay salawaatu ullahi wasalaamu calayh sida aan sheegay weeyaan, dee caqli iyo falsafad kalena uma baahna. hadii warkuu intaa ka badanyana qofku gaar haygu yimaado tii gaaladaynu la akriyi doonaa de markaas. su-aasha kale oo iyadana dhalinyarada ka timi, wiil baa soo qoray. sheikh wuxuu leeyahay waxaan ahay wiil qaangaada, laakiin da-da norwejigu ay qaydeen inuu ku guursado maan gaadhin. waxaan la heshiiyey gabadh iyana qaangaada laakiin da-da aan gaadhin. inaan isguursanana waan rabaa, muddadaasuna ma sugi karno wayna haysaa. marka waxaan u baahanahay in talo aan ku guursado laysiiyo. khayr allaha ku siiyo guurso, waa nisfu diin kuu dhamaystirmaya. waalidiintana waxaan u sheegayaa inay ufudaydiyaan. kollay ogaalkay berigii ugu dambeysay 5 sano ka hor norwejiga qaanuunkooda wuxuu sheegayey kuwa yaryar ee hadday 16 jir meelaha gaadhaan inay isguursan karaan bisharti in waalidiinta ogashahay. bisharti in waalidiinta ogashahay. saasaan rajaynaya inuu xataa qaanuunkoodu dhigi jiray. marka qaanuun iyo qaanuun la-aan iska guurso, wallahu aclam. labada su-aalood waan isku qabanayaa. waxay caruuraha ayay ka hadlayaan. waalidiinta qof kamida wuxuu leeyahay caruurtii hadday dhaqaalo tahay iyo hadday wakti tahayba waan bixiyey. ay sidaa tahay way iga sii fakanayaan oo way iga sii yaacayaan. maxaan markaa samayn karaa sheikow? su-aasha kalena waxay leedahay caruurtii tuulo cidla ayaan deganahay, waxaa laygaga khasbay inay xiisadii kiristaanka khasab ay dhigtaan. aad baan u walwalsanahay, maxaan sameeyaa culimoy? qofkii raba inuu badbaada siduu ku badbaado inuu aada uga fikro weeyaan. marka koowaad masalan soomaaliya markaan joognay ee dhibtu dhacday ee aada baqatay, waxaad ku tala gashay inaad badbaado. miiniskii aad ku badbaadi lahayd oo dhanna waad samaysay. orodkii halkaad kusoo gashay, ubey adduun baad bixisay, maskax baad bixisay, tamar baad bixisay, dadaal baad bixisay. waxaasoo dhan waxaad u samaynaysay maxay? inaad badbaado. maanta haddii dhib kale ku qabsato oo tiiba kaaga darani, oo maalinta waxaa laga yaabaa inaad la cararaysay nafta iyo jidhku inuu wax noqdo, inaad la cararaysay. haddii maanta dhib ka adag ku qabsato oo ay noqoto inaad badbaadi weydo, inaad badbaado inaad ku daydo weeyaan. idan waa la garan karaa sida lagu badbaadi karo. hadi waaxida. ka labaad, yani waxaan uga jeedaa hadday dhab tahay inaad rabto inaad badbaado, you can do. macnaheedu waad samayn kartaa, maaha inaanay mushkilad kaa hor imanaynin. noloshu gebigeeduba waa mushkilad. noloshu gebigeedu waa mushkilad la xalilayo. maalintaad mid ka baxdaba mid cusub unbaa ku hortaagan. ilaa intaad godka ka gelaysana mashaakilka unbaad maalinba la kabjiidaysaa.
كلمات عن tilmaamaya waxa weeyaan waxaan aad idin kula talinayaa inaad wadankii tagtaan weli maan odhan haddayna u guurtaan waxaan idin inaad tagtaan adiga iyo iyagaba wax badan bay ka bedelaysaa walow fasaxana ha noqotee fasaxu miyuu badan yihi 2 bilood 3 bilood 4 bilood inaad tagto oo aad ciyaalka geyso waxa laga yaabaa inaynu inagu ka fekerayno kan yar iyo islaanta iyo labada yaryar iyo inta markaa isku daro waa $5,000 baan ku bixiyaa inay intay tagaan haddana soo noqdaan inagu inaysan ufakerayna laga yaaba ku bixi waxa la $5,000 ee ay visitka ugu tageen wadankoodii maskaxdooda xagga kale usoo rogaysa maskaxdooda waxaanad adigu ka rogi karin bay ka rogayaan kow dhaqan buu soo baranaya culture buu soo baranaya dadkiisi buu soo baranaya siday u nool yihiin buu soo baranaya wax badan buu waxaanad adigu islahayn misaal basiita baan ku siinaya inan yar baanu israacnay oo aan dhalay waa inan yar oo dee 5 jir buu markaa meelaha ahaa 6 jir 5 jir iyo waxoogaa baan filaya 6 buu gaadhay markaa ayaan rajaynaya waxaanu ka daadegnay Hargeysa airport su-aashii koowaad ee weydiiyaa qariib igu noqotay wuxuu ku yidhi aabo soomaalidu ma wada madowba ismaan lahayn inaan kan wax kalaba bare soomaalida madowba u sheeg ismaan lahayn de way maskaxdaydaba kuma jirin soomaalidu inay madow tahay inaan ilmahayga ka dhaadhiciyaa igumama jirin wax la barayo laakiin markay noqotay awal su-aal uu weydiiyo markuu garoonkii istaagay Hargeysa ee uu dadkii eegay wixii kasoo horbaxay bay madow noqdeen su-aashii koowaad ee uu weydiiyaa waxay noqotay aabo idan waxaan ogaaday wax badan oo aanan anigu ilmahayga bari karin inay jiraan waa maqan culture-kii iyo dhaqankii iyo dadkii iyo afkii markuu dhex tegayna ilmuhu siduu u fakerayaaba uu change garaysmaya waxaa in badan lai sheegaa inamo meelahan markay joogeen laga quustay oo loo taag waayey 17 jiro 16 jiro la kaxeeyey oo la geeyey meelihii aabayaashoodii adeeradood joogeen oo markuu tagay inuu dib u hambaaburay inta odayadii la soo hadlaan lacag soo dadkii aad bay u baahan awal wuxuu ku lahaa war maxaad wuxuu ku diraysaa kuwan bay xoogsadaan iyaguba markuu arkay meeshii siday tahayna lacag soo dir iyo kan soo dir markay soo noqdeenna ka bilaabay dadkii aad bay u baahan yihiin anigu waan xoogsi tegaya iyo waxbaan baranaya haadii aan darayskii baa tahay oo dhan ilaabay waayo isagoo 17 jiro xagga tago halkan ku haystay inuu aan darayjaan caqliba ku jirin yahay halkoona waaba loo soo shaxaasagay oo ilaa ninka Yurub ka yimi waaba loo soo shaxaasagayba yani ninkan wixii loo sheegi jiray markuu halkan joogay iyo markuu halkan tagay wixii uu la kulmay baaba isqaban waayay waxaan uga jeedaa $1,000 uu qiimaydan la yeelan $1,000 kan tigidhka ugu jaraysaan qiimayo idin la yeelan war gaaladu buurahaasay ku fuulaan 1000 kan visit kasta arday baa la saaraa buur baa la saaraa kan baa la saaraa caruurtan reerkan idinka dhammaantii waxaan idinkula tarinaya guurista aynu beri dambe isla gaadhno malaawadaadka guurayda yidhahdo horaa uga xanaaqdaane bal aan beri dambe iyada isla gaadhna waxaan idin leeyahay war wadankii taga oo u taga inaad experience heshaan inaad dadkaaga maskaxdooda soo bedeli kartid inay wax soo kororsan karaan war marnaba isku mid ma aha ilmaha wadankii soo arkay ilmaha halka jooga marnaba isku mid ma aha isku si uma fakerayaan isku si wax uma qiimeeyaan isku si wax uma tarayaan idan walaba qodob baan idin tilmaamaya haddaad khatar ku jirtana markii horeba khatarta saad uga soo baxsatay imkana waad garanaysaa ee uga baxso haddaad weli waan sii leedahayna war bal meeshii taga wax badan baa idiin soo kordhayay wallahu aclam su-aashan waxaan u malaynayaa inay dhalinyaro ka timi waxay leeyihin waxaa jirtaa dhalinyaro jecel inay masaajidada tagaan ama ay diinta bartaan ama hadday gabdha yihiin ay xijaabka sharciga qaataan laakiin waalidiintii dhalay ay ka hortaagan yihiin ama labada waalid ay isku haystaan oo midna u diidan yahay midna uu ogol yahay dhibaatada ayaanu ku jirnaaye sheikh maxaad waalidiinta iyada kula talinaysaa waxaan u malaynaya su-aashan inaan lasoo qorin haddaanay jirin laakiin waa wax laga naxo qof muslim ku abtirsanaya oo ilmihii uu dhalay uu leeyahy waan wanaagsanaanayaa le ha wanaagsanaani muxuu ka rabaa
inuu maxay noqdo mana discoteca tagaan buu doonaya marka yani ilmihii uu dhalay hadday leeyihin waa wanaagsanaanaya war xataa kooxda ka soo qaad inaad tiladay nimankan waa niman yaro mutaطarifiina meesha jooga ama waxbaa ka yaro qaldan inay waxoogaa iyagoo ay ka qaldan yihin kuu bartaan islaamka ka roon inay suuqa kuu galaan taa miyaad ku xisaabtamay xataa haddaad tidhaahdo qoladan war in yar baa ka qaldanoo waxoogaa bay yaro durugsan yihin in waxoogaa islaamnimihii ku qaldanto ayaa waxay kaaga roon tahay inuu suuqa kaa galo idan wax laga fekera maaha ilma aad dhashay oo kule ama waan isasturaya ama masaajid baan tegaya ama caynkan meed aakhira iyo ilaahay ka baqarayni subxaana watacaala ilmahana waxaan u sheegaya dee xorriyadda halkan laydinku siiyey xumaantun laydinma siisane xaqaba u adeegsada aaba xaquma le inuu ku dilo qaanuunkaa dhigaya soo ma ahayn kuma maagi karo ma markaa xumaha doonaysaan unbaa qaanuunkan adeegsataan waayo macsi maaha inaad khayrka samaysaa macsi maaha yani haddaad intuu diido haddaad adigu samayso macsi maad samaynin ilaahay labada waalid wuxuu ina faray inaynu ateecno si kasta inaynu ateecno sharta kuraa lagu xidhay ilahay macsidiisaa ku ateecina la yidhi wixii kaleo dhan waa lagu ateecayo idan wanaagsanaada hadday idin diidaan lagu ateeci maayo qaanuunka dawladduna waa kugu taageeraya halkaad doonaysa inaad tagtay hadduu halkaad doonaysa khayrka noqotay qaanuunkuna waa ku taageeraya adna waxaan kuleeyahay dhiiro waalidkiina waxaan leeyahay ilahay ka baqa asalaamu calaykum